Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay guddiga isku xirka gurmadka dadkii waxyeeloobay qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho. Guddigan oo magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ka kooban wasiirro, ururada bulshada, culimada waxayna ka qayb qaadan doonaan sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadkii ku dhaawacyada culus oo ka soo gaaray qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho. waxaan ka nimid aniga gudoomiyaha iyo xildhibaanada iyo wasiirada isbitaal Madiina oo ku soo aragnay dad meyd ah iyo dad dhaawac ah halkana waxaan nimid meeshii shalay uu qarax ka dhacay meeshan runtii waxaa ka muuqda inay tahay musiibo qaran cid walba oo ku fikiri karta in waxaan lagu sameeyo dad shacab ah rag iyo dumar iyo haween dhalinyaro odayaal waa cadowga ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa haddii aad ganacsato tahayna nolol kuma haysatid sidaan haddaad arday tahayna iskuul ma aadi kartid haddaad shaqaale dawladeed tahayna ma shaqayn kartid macnaheedu waxay tahay waxaa lala dagaalamayaa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waa inaan waxaan meel uga soo wada jeesanaa waa inaan wax walba oo kaloo jira intaan dhinac u dhigano ka shaqeynaa haddii Ilaahay yiraahdo ummaddeena sidaan u badbaadi lahayn guddiga maanta aan magacaabay oo howlaha musiibadan qaran la xiriira ka shaqeynaya waxaan ka codsanayaa in sida ugu dhaqsaha badan meydkii aan ku soo aragnay isbitaal Madiina loogu sameeyo aas qaran loona duugo sida ugu dhaqsaha badan dhammaan shaqaalaha dawladda waxaan ku amraynaa ama la farayaa inay gacan ka geystaan sidoo kale gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha waxaan ka codsanaynaa inay iyaguna dadaalka sii laba dibaaraan dadkii ku dhaawacmay haddii Ilaahay yiraahdo waxaan bilaabi doonaa oo aan ka codsanay dawladaha saaxiibkana in dalka dibadiisa lagu soo daaweeyo nambarkii tiradii ugu horeysana berita aroorta hore ayaan qaadi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ka shaqeyn doonaa in qof walba uu halkan ku helo tabarucaad uu u baahan yahay qofkii halkan aan wax looga qaban karin waan qaadi doonaa dibadaan ku soo daaweyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin assalaamu calaykum dhanka kale Ra'iisul Wasaaraha ayaa booqday isbitaal Madiina ay ku jiraan inta ugu badan dadka waxyeelada ka soo gaartay isagoona sheegay in la qaadi doono dadka qaba dhaawacyada halista ah ay u qaadi doonaan caafimaad dibadda ah inta ku dhimatana loo sameyn doono aas qaran maadaama ay tahay masiimo qaran Roode Cabdi Xasan Soomaali News TV magaalada Muqdisho